الله عليكم daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeeni waa barnaamijkeeni ka daawan jirteen hadahan oo kale bidaar caawiye TV oo anigoo ah liimaan bidaar caawiye arooriyo suuban waxaan leeyahay meel walba dunida ka joogtaan waan salaamayaa insha Allah waxaan u guud galeynaa barnaamijkeeni dad badan baa isweydiinayo bidaar caawiye fiidiyoyo badan buu soo galiyo oo isku eg waa run fiidiyoyaashu way isku eg yihiin ma kala duwana laakiin waxaa muhiimadda waxay tahay hadafka aan leenahay isbedelka socdo ina la socoto ama kula wadaago suu madaxayga isku bedelayo insha Allah bidnaahi kariim waxyaalo badan aan rabaa inaan ka hadlo maanta barnaamijkayga ku saabsan yahay weli qaasatan dadkeena qurbaha joogo ayaa rabaa inaan dardaaran siiyo ha iloobin waxaan xasuustaa hadaa kafta yar dhexgeliyo Soomaaliya waagaa joognay qorax haysanay kulul laakiin waxaan laga iibin jiray barafka hadaa cabitaan rabtid hadii biyo cad rabtid baraf inaa haystaa muhiim ahaan jirtay hadaa xasuusato laakiin markaan dibadda imaanay qurbihii imaanay baraf lama iibiyo biyihii ayaga iska qabow waxaan laga iibinayaa qoraxdii hadaba u fiirso marka dibadda imaato qurbaha ay imaato Mareykan Australia meel walba waxa laga iibinayaa qoraxdii waliba qaasatan Europe ugu daran qoraxdii kaniiniga vitamin D ah wallahi waa laga iibiyaa qoraxdan laga iibiyaa qofkan qoraxdaas cunina timaha way daadayaan ma ahane maca sunniyaha daadanaya sunniyaha garka iyo shaarbaha daadanayo marka dardaaran iga tahay iyo dhiirigelin waxaan jeclahay mar walba saa barnaamijkan ila wadaago idinkana ii dhiirigelisaan idinka aniga wax nigu ahay wuxuu qoseeyaa barnaamijka wuxuu aad u qoseeyaa dadka timaha ka daataan dadka bidaarta leh waxa waaye taa hadal kama saarno dadka bidaarta leh marka waxaan rabaa inaan barnaamijkayga ku soo qaato maanta isbedelka madaxayga uu sameeyay maxaa ugu wacan marka halka hadda fiiriso saaca dhaho halka ani timo kuma lahayn halka dhaxina timo kuma lahayn meesha yurtana kuma lahayn bidaar yurta ana wala baxay qofku sigo wuxuu yaqaanaa qadaadka kale u yaqaanaa wax kale u taqaanaa marka muhiimaddu waxay tahay dadka qurbaha joogo qaasatan Europe ha ahaato waa ina isticmaasha vitamin D hadaa isticmaalin baashan degdeg wax kugu qabanayso ni hair lotionka degdeg wax kugu qabanayso waxa qasab kugu ah vitamin D ina isticmaasho afar ka saac hal xabo vitamin D-ga qofka Soomaaliya Afrika joogo vitamin D uma baahno qoraxdii uu haystaabo anaga qorax ma haysano had iyo jeer waxa way qoraxda aad ay noogu yartahay dadka qurbaha joogo marka maxaa ula jeedaa baashar hadaa rabtid inaad ku tarto vitamin D-ga iloowin walaal ama gabar ha aata wiilahada dadka daawanayo ha iloowin mar walbo halka naga daawanaysan barta YouTube-ka aan ku leenahay bidaar caawiye TV waa anigoo ah liimaan bidaar caawiye waxaan leeyahay iloowin inaad subscribe saartaan share like comment ay ugu reebtaan wixii fariin ah waxaan ugu gudagalayaa barnaamijkii shalada wax ma caawisaa shalada qofka haduu haysan darmarool shalada wax ma caawisaa ha shalada way caawisaa ani cashiradeeda dib ugu noqon kartaa inta badan shalay isticmaalay darmarool ma haysan laakiin markii aan labadooda mid qaada lagu dhaho kana ka fiican dadka Soomaaliya joogo kala wiil waxa qaarna Soomaaliya iga soo wacay waxa ka heli kartaa walaal ku soo qoraya insha Allah commentiga igu soo qoraya ka Soomaaliya iga soo weydiinay darmaroolka meel laga helan ku soo helay waa ku soo sheegaya meel laga helo darmaroolka wuxuu muhiim u yahay aniga laba jeer baan suubiyaa uma baahnid inta saliid qaadato inaad ku qubaysato maalintii oo dhan qofka bini aadamka ah aroortii markuu kaco kala sida hadoo kale aan qadka ugu jiro aniga aan barnaamijka ugu jiro aroortii markaa kacdid hal mar baa isticmaalaysaa aroorta hore soo qubayso shaamba inaad ku soo qubaysatid ma hadaa xal shaamba ku qubaysato saaka shaamba inaad ku qubaysato uma baahni biyo cad maadaama xal aan ku qubaysto shaambo waxaan u baahanahay biyo cad oo nadiif inaan ku qubaysto caadi ah kadib madaxan soo qalajin marka madaxa soo qalajiyo oo soo fadhiisanaya waxaan bilaabay marka madaxa qasfic u qalajiso 10 daqiiqo TV-ga daarta iska shidanaysaa aduu TV ku yaalo wareer ma jiro bahalkan waa iloobay dadka bahalka isticmaalo waa inaad dhaqdaan darmaroolka marka isticmaasho biyo caadi oo diiran ku dhaq darmaroolka waxyaalo yar ku haray cad oo madax uu ka keenayo bismillaah waa bilaabaya marka darmaroolka waxa laga yaabaa bariyaha kugu horeyso uu ku dhibaya aan hadda uu dhibo bariyii ugu horeysay hadda ma aqaan maanta 4 cashar ay taamaynaa 4 cashar 5 cashar ay tahay halka naga daawanaysan barta YouTube aan ku leenahay bidaar caawiye TV meel walba joogtaan waxaan leeyahay idinka wax nagu nahay
sheerta leega commentiga subscribe-ka hanaga iloobin baalkana uma baahnid inaa xoog madaxa ugu jiidid madaxa tartiib iskaga mari uma baahnid inaa madaxa xoog ugu riixdid waayo haddaa madaxa xoog ugu riixdid baalka wuxuu leeyahay ganahaas waxaa laga yaabaa inuu dhaawac ku geystaan ganahaas ayaa laga yaabaa inay dhaawac ku geystaan halkaan naga daawanaysaan barta youtube aan ku leenahay bidaar caawiye tv waa anigoo liibaan bidaar caawiya meel walba joogtaan waxaan leeyahay ku xirnaada janaalka waxaan jecelnahay inaan soo gaarsiino barnaamij walbo iyo timahayga isbedelkay sameynayaan idinkana sidoo kale waa ila soo wadaagi kartaan whatsappka timihiina isbedelkay sameynayaan dad badan baa waxay aaminsan yihiin baasha mid waxaa jirta faaga iyo mid kale jirto aniga weli faagi ma arkin hal xabaan isticmaalaya midaan isticmaalaya hadda aan haysto horena waan igu sheegay lambar 2 ma ahan lambar 2 ayadoo ahayna timi ka soo saartay haddii lambar 2 uu fiican yahayna waa arki doonaa tan markay dhamaato lambar 2 tijaabin doonaa laakiin tan oo lambar 2 ahayn ayaa timi iga soo saartay ogow yaa lagu sheegin faag iyo waxbaa jiro qof kala garan kara ma laha hadduu faag jiro iyo haddii kalabo aniga markaan bilaabayay lambar 2 iyo waxaa lama aqoon markaan dhowr cashooda waxaa maqlay lambar 2 jirto lambar 3 jirto marka hadda waxaan arkay walaal kale oo dhahayay kartoonka waxaa ku qoran g maasha Allah roob hadda ayo roob fiican baa noo daayay alxamdulillah GMB da kartoon ku qoran GMB kartoon kulli uu ku qoran yahay aaga haddaan soo bixiyo office GMB da baasha mid faarsada iyo mid kale okay aaga ku qoran tahay GMB waa ka gaarda may ka qoran tahay waa MBY waa gaadi caadigeed oo guuleeda ma oo maryan ah MB oo ah baba ama bacda forbenka ah hadaa taqaanid marka lambar 2 kuma qoran tahay isticmaalay aniga dadka waxay leeyihiin lambar 2 ka fiican midaan kale laakiin waxa aaminsanahay anoo lambar 2 isticmaalin inay timihii soo saartay tan lambar 2 ma isticmaalin lambar 2 meel yaalo lama arkin inay timihii soo saartay wax walba dadaal ay rabaan hadaa dadaashid walaal way ku soo baxayaan timahaagi inaad raacdid waaye inaad kaliya raacda waaye baashan systemka ku qoran ama sidii loo isticmaalayo uma baahnid inaad hal xaba qaadatid ku qoysid uma baahnid si tartiib oo degan baa u isticmaalaysaa intaada baashan isticmaalin haddaa haysato darmaroolka ka horreysiinaysaa 5 daqiiqo darmarool ama ilaa 6 daqiiqo iska dheh mumkin haddaa darmarool haysan waxaa muhiim ah victid waxaa shallada dadka jooga Nairobi darmaroolka waxay ka helayaan townka yar ka soo gatay Osaka anaa website-kiisa la siinayo townku ka soo gatay marka ayaan ka isticmaalayo waa 05 eber 5 waaye asaga eber 5 soo ayuu yiri laakiin dib ma laha eber 3 wuxuu helay eber 3 uu isticmaali karaa waa caadi muhiimaddu waxay tahay wax madaxii dulduleeliyo darmaroolka inta badan waa nii sheegay wuxuu aad ugu fiican yahay uu xoog lixaad la ka qaataa raali ahaado salxanyaha tinta ku taala aad si dhaqso u soo saaraa salxanyaha iyo halkan dhexe iyo yurtaba uu ka soo saaraa si dhaqso uga soo saaraa asaga uu dulduleeliyaa duleeladaas waxay u sahlaysaa saliidii inay si fiican u gasho si fiican u fiiri madaxayga hadhow hadhihin timaal lahayd iyo madaxaaga caadi u ahaa halkaan naga daawanaysaa barta youtube aan ku leenahay bidaar caawiye tv waa anigoo liibaan bidaar caawiye meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay wixii fariina gaashaanbuurtan inaan kala harna ma ahan meel walba aad joogtaan walaalo badan waxay soo weydiiyeen bidaar caawiye kala jiro bidaar caawiyaha isku mid bidaar caawiye muhiimadeen hadafka aan leenahay waxay tahay waxaan walaalo ku nahay inaan la dagaalano bidaarta in la isfahmaa fiican waxaan walaalo ku nahay meel walba aan joogno inaan la dagaalano bidaarta aan raacno shuruudaha baasha markaa marsanaysa ay u baahan tahay aniga gurigeyga joogaa waxaan ila wadaagayeen waxay tahay waa si walaalnimo ah qofkii waxa laga yaabaa inuu baashi haysto oo laakiin si qaldan u isticmaalo haddii wixii si qaldan u isticmaasho dheefteedii ma helaysid ogow ha iloobin hana soo dhaka weynaan adiga i daawanayo sheerta subscribe-ka leega ha iga iloobin walaalkaa baa ahay adiga ani wax kugu ahay adiga i daawanaya wax kugu ahay bidaar haddaa leedahay ha ka fakerin ha isugin aniga nabadoono badan baa isugaya ogahay isku magaalo aan nahay kafta hadaa ku tuuro ha isugin aniga saaxiib ee la soo bax dadaalkaaga adi isku day waa awoodaa waa ogahay waa aaminsanahay inaa awoodo balarto isku day laakiin isku daygii waxaa kaga jira shaki ah warniyo waxaan ciyaaray wadaanoo ma jiraan way jiraan haddaad dadaal samayso in aad dadaalkaa mirihiisa guranayso dadaal haddaad samayso dadaalka mirihiisa guranaysaa insha allah waa ujeedaa 5 daqiiqo wax weyn ma aha 5 daqiiqo aa wado darmarool
shan daqiiqo oo ardaydan uga faa'iideynayso shan daqiiqo meelaha salxanyaha waa ujeedaa si tartiib baalka uu ku dhaawacaya darma marka wuxuu leeyahay mudacyo xoog ha uga xoqin madaxa si tartiib oo degan uga xoq adoo ka fiirsanayo inuu dhaawac kuu geysan halkaa naga daawanaysaan barta youtube aan ku leenahay bidaar caawiye t v oo aniga oo liibaan bidaar caawiye meel walbaad joogtaan walaalayaal waxaan leeyahay nala soo wadaaga wixii fariimihiina ah annagana waxaan nila wadaagaynaa wixii cashir ah sida ugu dhaqsiyaha badan ama sida ugu muhiimsan ama sidii aan u awoodno ayaan iiga soo jawaabi doonaa fariimihiina madaxii u jeedaa marka hadda saa u wada mariyo madaxoo dhan baa caddaanaya markaa wada mariyo madaxoo dhan wuu caddaanayaa marka uma baahnid inaad ku mashquulshid ama aad ka fakartid madaxii iyo timihii ma soo baxayaan timihii way soo baxayaan haddaad dadaasho biidnillaahi kariim wax walbo dadaal bay rabaan haddaad dadaasho waxaan aaminsanahay timahaagii inay ahaayeen waagii binismaalka si ahaan jireen inay kugu soo noqonayaan adiga dadaal unbaa lagaa rabaa dadaalkaas inaa wado aa kala gooyin aa ka caajisin aniga kama caajisi laba waqti aan sameeyaa 100 marna waan igu soo celiyey ka raali ahaada laba waqti aan sameeyaa labada waqti aan sameeyana waxay tahay habeenkii markaan seexanayo iyo subaxdii oo kale markaan soo kaco habeenkii markaan seexanayo iyo aroortii markaan soo kaco intaan shaqada aadin ama intaan magaalada aadin labadaas baan sameeyaa darmarolkii waa xareeyey darmarolkii maadaama aan xareeyey hadda waxaa ii dhiman saliidii walaal macaane haddaa si qaldan u isticmaasho hadda ka fiirso haddii adiga aa isticmaalin walaalkaa wax laga yaabaa si qaldan inuu isticmaalo usii sheegaray barnaamijkan wax kale kuma saabsano wuxuu ku saabsan yahay see ula dagaalanaa bidaarta sidee ula dagaalanaa bidaarta see ula dagaalanaa sidee uga hortagnaa bidaarta adoo gurigaaga joogo waxaa arkaysaa qurbaha markaa imaato waxyaalo cajiib ku gelinaya 17 jir bidaar leh 17 jir bidaar leh oo ku dhahayo war aniga bidaar ma lihiye tinta halkaa kasoo go-eyso bidaarta waxay ku bilaabatana waxaa waaye tintaa soo go-eyso waaye haddaan runta nii sheego bidaarta waxay ku bilaabato waa tinta soo go-eysago tinta hadday go-do meel bidaar ma jirto hal mar qofka gasho tinta hadba meel ka soo go-do markay soo go-do kabacdi uu qofkii bidaarta arkayaa ay ujeedaa halkaa waxaa la dhahaa yurtaa u bixiyaani ama guud bayda saddexdoo xaba ku dhufo baasha ha xisaabin madaxii dham inaa saliid gaarsiiyaa raba waayo madaxii uu caddaaday madaxii wuxuu dareemayaa abaar agool buu dareemayaa madaxii oo dham agoolaa ka soo baxay agoolkana waxaa keenaya waa baasha biidnillaahi kariim meel walbaa joogtaan idinkaa wax nagu nahay sii sheergaray barnaamijka walaalkaa usii sheergaray walaalkaaga i daawanayo usii sheergaray kheyr allah ku siiyo halkaa naga daawanaysaan barta youtube-kan ku leenahay bidaar caawiye waa anigoo ah liibaan bidaar caawiye meel walbaa joogtaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ujeedaa 5 daqiiqo masaajaa la rabaa marka waa ku masaajeynaysaa 5 daqiiqo oo masaaja ha iloowin masaajka waa muhiim inuu qofka masaaj sameeyo markaa ku shubto bahasha masaaj waxaan moodaa inay inta qalalan tahay alaaba inta ku dar labada gees iyo waxkaas berihii hore waxaan dareemi jiray hadda aniga xanuun ama xanfaf aan dareemi jiray markaan bahasha ku bilaabayo laakiin hadda waxaan moodaa waxaas inay idaayeen xanfafkii iyo wixii oo dhan idaayeen dhaka xabad xanfafkii iyo waxaasoo dhan inay idaayeen oo iga baxeen waayo waa la qabsanaysaa markay timaha soo baxaan meeshii godadkay duleelinaysaa baasha darmarolka hadday timihii soo baxeenna waxaan u malaynayaa dee way isxiraysaa oo xanuunkii iyo xanfafkii jirinkan saliidda ku shubto bilowga hore uu ku daynayaa masaaj 5 daqiiqo masaajaa la rabaa adig ilaa ay 5 daqiiqo ilaa ay 10 daqiiqo masaaj baasha ii xir intaa waayo timaha lagu sheegayay iyo dibadan tima ka soo abuurto iyo lacagaa laga qaado timihii waxay ima tareen may dabiici si dabiici ah u abuuro adoo gurigaaga joogo adoo meelna aadin si dabiici u abuuro meel adoo aadin isdhibin cashirka la soco mar walbo emailaa joogto ku xirnow barta youtube aan ku leenahay bidaar caawiye t v dhaka weyne waa anigoo liibaan dhaka weyne timihii waa ujeedaa 5 daqiiqo markay dhammaato kadib maxaan sameynayaa marka 5 daqiiqo markay dhammaato waxaan sameynayaa wax yar waxaan ugu darayaa marka shalla ah
ileen tintii waa habeeyey marka inaan shalaysto waa ku qasbanahay. tintii waa habeeyey 5 daqiiqo oo shala ah aan ku daraya. hadda madaxii u jeedaa madaxayga inta hadda aan haysto ma haysan waan iska dareemay hadda sarxanyaha labada qayb sarxanyaha iyo dhiman madax saamka dhaho aad dareemi kartaa xoogaa weli uu iftiimayaa laakiin de markaan haddaan baasha 2 bilood marsado ama bil iyo xoogaa marsado markaas isbedelka aad u muuqan doonaa. hadda laakiin dhawaan aan bilaabay waxaa laga yaabaa maanta inay ii tahay isniin maadaama ay tahay 15 casho aan wadaa gebigii 15 casho aan wadaa insha allah. waa ujeedaa intaa waa baasha lagu sheegayo qofkan waa asay ku xiran tahay. hadduu qofka dadaalo uu isdhiirigeliyo waxaan aaminsanahay aniga timihiisa asagoo meelna aadin inuu gurigiisa soo joogo timihiisa helaayo. hadduu qofka asaga isdhiirigeliyo oo isku kalsoonaado in timihiisi uu helayo. laakiin haddaa isdhigato oo koofiyad aa qaadato aa iska dhaadhiciso waxaan wax kuma talayaan ogow. insha allah halkaasaan kaga baxaya barnaamijka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.